بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله runtii anuu caaw waxba kuma soo talagelin laakiin markii la yidhi kitaab qur'aan oo la fasiray ayaa laga warramayaa waxaan sidhi waa rigelka xooji waa ka maqnaanin qur'aankaasi la tafsiiray waana meel buug ama kitaab lagu daahfurayo soomaaliyeed halkii ugu horreysay aan imaado qoraaga aad baan ugu mahadnaqayaa si aada u weyn waxaanan rajaynayaa inuu buuggiisu wax badan uu faa'iideeyo afaf in laysku tarjumaa wax fudud maaha dee waxaan filayaa sheekh dalmar oo takhasuskiisa ay tahay baa fadhiyo ay ahayd inuu ka hadlo iyo ragaf soomaaliga iga badiyo badan anu qur-aana ma ihi afafkana waa layga badiyaa kitaabka qur-aana marka ay sifaynayaan waxay yidhaahdaan wuxuu ka mid yahay waa buugga dunida loogu akhris badan yay looguna faham yaryay bay yidhaahdaan marka la eego buugga ugu daabacad badani waa injiilka bay yidhaahdaan waa qolada kristanka buuggooda ugu daabacad badan oo dunida ugu tiro badan oo la daabaca laakiin waxay dhahdaan akhris marka la eego dee adigu muslimka tukanayo in dunida qiyaasi mise faatixa maalintii akhriya waxay dhahdeen waa buugga loogu akhris badan yihi laakiin haddana loogu aqoonta daran yahay marka la eego oo haddaynu dadka soomaaliyeed weydiino inta faatixa akhrida imisa faatixada macnaheeda taqaana dee waxaynu ka garan karnaa nisbada akhrida qur-aanka iyo nisbada fahamtaa inta ay isu jiraan kitaabkani markaa wuxuu soo dhowaynayaa dad badan oo aan afka carbeed aqoonin ama aan hore loogu tafsiirin aniga caawa igu horeysa xataa akhriskiisa ama eegashadiisa laakiin haddii intaasoo culamo uu sheekhu sheegay isha soo mariyeen waa rag aan kalsooni badan ku qabo waxaan rajaynayaa inuu soo dhoweyn doono kitaabkan iyo fahamkiisa wuxuu kaloo soo dhoweyn doonaa af carabiga barashadiisa waayo qur-aanku af carabu ku qoran yahay af carabigu horta waa luqada dunida ugu badan mufradaadka erayada af carabigu marka laysu geeyo dictionaryadiisa iyo erayadiisa waxay yidhaahdaan waa 12.3 million words waa 12 milyan iyo 300,000 iyo jajab luqada ugu dhowo kale bay yidhahdeen waa luqada ingiriisiga waa 160,000 qiyaas intay isu jiraan 25 jeer buu ka badan yahay jarmal baa ku xigo waa 150 faransiiska ku jarmalku waa 160 baan filaya ingiriisku wax yar buu ka badanya waxaan filaya mid inuu 160 iyo midna 150 yahay midina 130 uu yahay waa say isugu xigxigaan ingiriisiga iyo faransiiska iyo jarmalka afka intaa leeg waxay yidhahdeen beri horuu dhiman lahaa haddii aanu qur-aanku ku qorayn qur-aankaa haya inuu af nool noqdo oo weli dunidu ay sidiisa u isticmaasho afafka dunidu siday u badan yihiin ama luqaadka reer galbeedka aynu dhigannaa waa muratab bay idhaahdaan waa af isdabayaal u qoran maalan ingiriisiga subject baad ku bilowdaa verb baad sheegtaa dabeetana object iyo predicate wixii kale ka dambeeyey baad sheegtaa waa systemkaasi oo quruu ku iman karaa af carabigu waxay yidhaahdeen waa luqa mucraba godninkan iyo hoos dhigana khaatiga ka taagantiin cilmi aada u ballaadhan bay sidaan walidaalik iminka haddaynu rabno inu idhaahno moxamed baa cali garaacay daraba muxamadun caliyan saa waa u dhigi karnaa waxaynu kaloo odhan karnaa muxamadun daraba caliyan waxaynu kaloo u dhigi karnaa caliyan daraba muxamed ereyga meeshaynu doonaa baynu geyn karnaa bimujarad inuu calaamad yaroo godniin midna wato midna calaamad yaroo kordhiga wato halkuu doono geynaya ereyga kan laakiin
saddexda jumlo midna mid la macno ma aha xagga asalka waa iskaga macne oo waa maxamed baa cali garaacay laakiin haddii bayaanka luqada carbeed iyo macaanideeda loo eego saddexda jumlo mid waliba macno dheeraad oo aan ka kala sidin buu sidaa afka caynkaasa ee 12 milyan iyo dheeraada ee isu rogrogiisu sidaa yahay inaad af kale ku sargoysaa mustaxiilaadka ku jirtaa bay yidhaahdaan waa wax aad u adag bay yidhaahdaan afka caynkaasiya haddana kitaabkii afka ugu sarreeyey ugu mucjiska ahaa inaad ku tijaabiso af kale inaad ku sii tarjuntaa ninka farsamadaa u dhaqaaqay dhibta haysatun baanan uu qiyaas karaya yacni ninka isku dayey waayo ninka mufasirka culimmada agteeda fadhida mufasiriinta ahay dee aayadda markay sheegaan xagga kaga kaalay oo xagga kaga kaalay oo in af carabiya ku dar oo af ingiriisi ku dar gabay ku dar waxbuu isu geeyaa ilaa uu ku fahamsiiyo laakiin qoraagu dee intaa wada heli maayo qoraagu waxaa la rabaa dhowr santarisoo yaryar inuu macnaha tirada badan lee wadaadka tafsiiraya uu maantoo dhan waday inuu kuugu soo dhoweeyo ku koobo idan ninka kitaabkan qoray waxaan u arkaa daki maaha qura waa nin hardware kara succeskuna hardwareka ku jiraa bay yidhaahdaan daka qura maaha waa qofku intuu howlkariyahee waxa kanuu tijaabiyo dee bayjajkaa yar wuxuu inoo sheegay 2015kii laga soo bilaabo iyo haddoo ah maxay 2020 caawa waxaynu joognaa maxay 2021 intaasoo sannadood buu intaas soo waday inuu taxriiriyo oo isku dayo oo ilaaliyo dee waa ilaahay kitaabkiisiiyo inaanu dhukdhuk kaga soo bixin weliba afka uu ku qoray waa afaan bislayn markay qoraalka timaado oo waayo waxaynu qoraal haysanoo dhamme waa waxoogaa gabyaaya ama sugaanuun wax ku tacalluqa ama riwaayad dheh ama hees dheh ama gabay dheh ama sheeko dheh waa adab wax ku tacalluqa af cilmi iyo cilmi qoray maaha ninka isku daya markaa inuu afkaa cilmi ku qoraa hawl dheeraadoo kalaa sii haysata cabdibashiir waxaan leeyahay ilaahay ha ka aqbalo subxaanahu wa tacaala isku daya aad samaysay ha kuuguna gargaaro waxaana rajaynayaa kan ilaahay jannada ku geeyo uu ku dadaalay haddii alla yidhaaho subxaanahu wa tacaala waana waxtar weyn qofkii rabay inuu qur-aan barto xataa qofkii rabay inuu af carabi barto waayo waxay yidhahdaan qur-aanku luqada carbeeda nool maanta bersentka ugu badani waxay yidhahdaan waa luqada qur-aanka saa daraaddeed haddii aad qur-aanka macnihiisa af soomaali ku fahamto vocabulariga ugu badan ee luqada carbeed ee hadda mustacmal dunida ka abaad baratay weeyaan marka xaggaa marka laga eegana af carabi nin bartay baad oo vocabulary aad u tiro badan ayaa ku soo kordhay aqoontaada luqadaaduna de waxay ku salaysantahay uun intaad vocabulary ka taqaano luqadaasi bay ku salaysantahay idan kani mar waa ilaahay kitaabkiisii aynu fahmayno marna waa af carabiga laftiisii aynu fahmayno marna hadda waa af soomaaligeeniyo laynoo badhax tirayo sidii ugu fududayd inaynu u garanno aynu u fahmayno walidalik anigu waxaa laga yaabaa dadka afna ku fiican mayhi laakiin dadka jacburka ku fiican baan ahay in carabi ingiriisi soomaali la isku walaaqo caruurtayda yaryar markaan is idhaahdo maal dhaweyd bay kuwa yarre yimaadeen waxaan ku yidhi jisca maalidiin sharxayaa kaalaya marka 2-3 wadaba way safgaro weynaa ama erey soomaaliyeed oo weynoo horaan sheega ama erey kaloo carabiyaan sheegaad laakiin waxaan rajaynayaa kan inuu wax badan iga caawin doono inaanu aniga iyo kuwa yaryar isafgaran karno oo bal aan isku dayi karo inaan suwarka qur-aan ee ay malcaamadda ka soo dhigtaan macnaha guud at least inaan u fasiri doono ama aan ku kaalmayn doono anu markaasaan idiin sheegay kumaan talagelin caawa inaan hadal badan idhaahdo waxaan ku talagalay inaan golaha xoojiyo oo higilkaasi aan ka qayb qaato oo kitaabkani sidii uu noqon lahaa kitaab midho dhala biidni illaahi tacaala inaan waxaan ka geysan kara ka geysto marka waxaan ku soo koobayaa sheekha qorayna iminka dee abwaanka annaga uu nagala sarreeya xagga sheekhnimadaaan u kaxaynaynaaye waa laga yaabaa inay idinku xagga abwaannimada jeceshiin
قالوا حق كلام سيك حين يا شيخ عبد البشيرنا إن الله كأقبل سبحانه وتعالى إن لغة نينا أين نقولنا ضد برتي أفك الصومالية دو سير لمن إياه إنك أنا دلينا ما هاي نعدو كسر شيء وإنك استعمالي ويني لما شدي سو حكا قفلا دي بل واحد أخرداون حياسيس كمقالة هرقيسة كو قران dadka caamada Soomaaliyeed loo xayeysiinayo dhammaantood haddaanan odhan boqolkiiba 90 waa af Ingiriisi waxaad moodaa in Somaliland Ingiriisku degan yahay waxaanay ahayd inaynu afkeena ku qoranno waxay ahayd wax badan aynu isu sheegayno inaynu afkeena isticmaalo af Ingiriisi baa inala noqday wax weyn oo aad u weyn markaasayna afkeenii liidnay oo dillay dee carabina isaga hadalkiisa ba iska dah hadda dastuurka waddankana ingiriisigu kuma yaallo Somaliland dastuurkeeda maxaa ku qoran luqa luula inay maxay tahay Soomaali luqada labaadna inay tahay carabi haddana dawladdu waxay wax ku soo saartaa in badan oo ka mid af ingiriisi wax ku qortaa dadkuna af ingiriisi wax ku qoraa ورقة ليس قدبني في إنجليز هاللقو قرا وحنا الدستور كقو قرا وروح في الصومالي وحلقو قرا في عربي وحلقو قرا وحين أولي وين الدكامة ده النبورد كقو قرا نحن نكردقنا في الصومالي كان لقطة كيلها آسيان سيدا كورو صوك عدواء ذكتي لكن هدي القرآن كان لقو فسره إن شاء الله وحن سلاي وحن باقي كان نقول وهي كتاب القرآن هو كتاب باقية إلى يوم القيامة إلى أي بلن قاضين وحريو wixii lagu qorana waxaan sileeyahay wuxuun baa ka hadhi doona marka waxaan sileeyahay qaab loo nooleeyo af Soomaaliga waxa kamid ah kitaabkan aynu caawahayno oo isaga laftiisu wuxuu ka qayb qaadan doona inuu af Soomaaligu dib uu soo noolaado ama uu joogo oo dib uu soo barbaaro idan waxaan idin kula talinayaa afkiina hooyena dib ugu noqotaan ardadii hore Soomaaliyeed وعادة هنشرتي صدح دبلوضة فصحة إمبادية لقبط وننكستو أمدا أديدا أمدا أدي كل ويدها سكول كمرك لغا فصحوه بادية بلا وبلود لسوشو ويشري تاسوحي حوشين شرت ضد كانين ينقم كوديا في الصومالي قودي إلى باديو يالي إن يسفي عن أصوبرتان إمك باديه هنا وباباي ده إذن waa ka xaragootaan baadiya Soomaa in baadiya qabataan ba wax falxun la idin la muuqata hargeysana af laguma hayo oo baabay aad buu si dhimanaya waxaan isleeyahay Soomaaligu haduu dhinto xataa hadda wax idin garan waayo quraanka cid idin fasirta ilaa af kalena uma inaan talaabin keenina waynu aasaynay marka waxaan isleeyahay kitaabkani af carabiga uu noolayn af Soomaalina uu noolayn quraanka macnihiisina uu soo dhaweyn intaaba haduu inoo wada qabanayo inuu meel weyn inoo dagi doono baan rajaynaya ilaahina subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryayaa kii uu rabbi aqbalo ee dadku ay bartaan ee lagu baraaro inuu ka yeelo sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin